Filimkan maanta wuxuu ku bilaabanayaa macalinka maalinta u horeysa ee soo galay iskuulka, laakiin nasiib xumo ardayda waxay u maleegayaan dabin. Markuu iridda furan, waxaa kusoo dhacaya weel biyo kulul lagu shubay. Waxa ayse la yaabayaan sida uu iska difaacay biyaha kulul. Kadib ardaydii ayuu weydiinayaan cidda sidaan samaysay oo macalinka dabinka u dhigtay. Xiisad inay qaataan ma rabaan miya ayuu weydiiyey. Aan dib u laabano, macalinka cusub wuxuu ka mid ahaa ciidanka khaaska ah ee Navy Mareykanka. Kaliya ma ahayn askari wuxuu sidoo kale ahaa xirfadle dagaalka koonfuga ah. Hadda laakiin waa howlgab. Wuxuu doortay inuu noqdo macalin caadi ah oo iskuulka wax ka dhiga, laakiin waxaa lagu qoray fasalka uu dhib badan iskuulka oo dhan. 888 macalin ayaa iskaga tagay fasalkan marka ay xamili waayeen dhibka ardaydan. Laakiin asiga waxay leeyihiin carruur kaliya, culaysna kuma hayaan, wax cabsi ahna kuma jiraan. Xilli hore ayuu soo galayaa fasalka isagoo gacanta ku wata koob shaah ah. Wuxuu arkay ardayda oo game iska ciyaarayaan, kuwo iska jiifa iyo kuwo fasalka cunto ku dhex karsanaya. Mana jiro qof diyaar u ah inuu cashar qaato. Wuxuu u tagayaa mid hurdaya, wuxuuna ku dhahayaa subax wanaagsan. Intaas kadib magaciisa Shiineeska jinsiya ayuu ku qorayaa sabuuradda si uu isu baro ardayda. Ardaydu waxay ku qoslayaan macalinka, waxayna ku dhahayaan fartaa waxay eg tahay raadka doorada. Si lama filaan jinsiya waxaa usoo dhacaya telefoonka. Markuu gadaal soo fiirin, wuxuu arkayaa iyagoo isaga iska dhigaya oo taagan telefoonkan dhegta ku wada haya. Kadib isagoo hal erey dhihin ayuu wuxuu qabsanayaa laastig iyo jeesto. Kadibna wuxuu isku qabanayaa isha, wuxuuna leefayaa tubada biyaha. Kadib biyo ayaa si roob ugu soo daadanaya, qof walbana booskiisa ayuu ku laabanayaa. Kadib macalinka daladubta oo hee ayaa kusoo dhawaaday fasalkayga. Wareegkii koowaad ee macalimiinta iyo ardaydu wuxuu kusoo dhammaaday guusha macalinka jinsiya. Ardaydu waxay qorsheynayaan inay ka argutaan macalinka, qorshe kale ayaan la yimaadaan. Maalintii xigta jinsiya wuxuu imaanayaa iskuulka, ardayduna ma siinayaan wax ahmiyad ah oo telefoonadooda ayay ku mashquulsan yihiin. Macalinka wuxuu ku dhahayaa ardayda, waxaan idin weydiinayaa 3 su'aal. Qofkii ka jawaabana fasalka wuu ka baxayaa, wuxuu doono ayuuna soo ciyaarayaa. Jinsiya ardayda uu ku yaqaan sigaar cabo ayuu weydiinayaa inuu sigaar ku dhiibo. Kadib wuxuu ku dhahayaa qofkii sheeg kiimikaalka uu ka kooban yahay sigaarkan, wuxuu aadayaa banaanka si uu u soo ciyaaro. Arday ayaan ka jawaabaya, wuxuuna dhahayaa waa bixi kartaa. Dhammaantood way yaabayaan sababtoo ah markii hore kaftan ayay u qaateen, laakiin run ayuu u baxayaa qofkii su'aasha ka jawaabo. Qof kastan wuxuu ku hamiyaa inuu ka jawaabo su'aashaas. Su'aal labaad iyo mid saddexaad ayuu jinsiya weydiinayaa. Dhammaadka xiisadda wuxuu qof walba wax ka barayaa dhibaatada iyo halista sigaarka. Kormeerayaasha ka socda wasaaradda waxay arkayaan wax ka socda fasalka jinsiya, waxayna ka xumaanayaan qaabka uu wax u barayo ardayda. Waxayna ugu hanjabayaan maamulaha iskuulka haddii ay ardaydan keenaan imtixaanka buunta hoose in la xiri doono iskuulka. Laakiin jinsiya waxaas dhan kama sii yeelanayo, wuxuuna aaminsan yahay aqoonta wanaagsan in ay tahay in ardayga isagoo ku faraxsan oo wax barta. Xitaa iskuulka banaankiisa ardaydu wuu warhayaa, wuxuu booqanayo guri, wuxuu waalidkii lacag ka siiyaa jaabkiisa si nolosha waalidiinta ardayda ay u sii socoto. Wuxuu xitaa kala xayaa carruurta iyo waalidiinta isfahmi karin. Wuxuu tartan u qabanayaa ardayda si ay isku dhexgalayaan ayaga iyo waalidiinta. Mid ka mid ah ardayda waxaa qabanaya maafiyo, waxayna ku dirqinayaan maadooriye, balse jinsiya ayaa kasoo gaaraya. Wuxuuna ku dhahayaa mudanayaal ka raali noqda haddii aan qasay. Waxaan raadinayay ardaygayga, waa wiil yar oo xoogaa dheer, waana 16 sano jir. Waxaana soo istaagaya niman feeryahaano ciyaarta UFC-ga ah, waxayna fiirinayaan ninkan Shiineeska ah ee caatada ah, wayna ku jeesjeesayaan, waxayna kula talinayaan inuu meesha iskaga tago. Intaas kadib jinsiya wuxuu maqlayaa qaylada ardayga. Wuxuu u dhaqaaqayaa dhinaca qaylada, laakiin waxaa hor istaagaya kuwo murqaweynayaal ah. Laakiin mar qura ku jebinaya cadayga mid ag taagan. Halkaas ayaa waxaa ka bilaabanaya dagaal. Wuxuuna u garaacayaa mid qalin ayuu u isticmaalayaa hub ahaan, wuuna ku dagaalamayaa. Dhammaantood wuu laanayaa, waxaana loo wacayaa ambalaas. Tiifiyada waxay warinayaan geesinimada jinsiya. Ardaydii waxay ogaanayaan in uu jinsiya ahaa askari ka tirsan Navy Mareykanka. Sidoo kale waxay ogaanayaan yaraantiisa saaqada iskuulka inuu aad ugu dhibo macalimiinta. Wuxuusan ka jabiyay sawirka maamulaha. Isla sanadkaasna wuxuu baajiyay xaflad weyn oo ka dhacaysa iskuulka. Wiilkii wuxuu garaacayaa biyaanada xafladda qalin jabintiisa. Kadib jinsiya ayaa kusoo tuuraysa buufin lagu buuxiyey biyo si uu xaflad u qaso, waxaana bursaday wiilkii biyaanada garaacayay. Iskooba ayuu soo qaatay, laakiin jinsiya wuu jabiyey, wiilkii kama harin. Haddana wuu ka tagay taag ayuuna lagu dhegay, feer ayuuna kala daalay. Haraati uu waday wiilka ayuu ku dhuftay sawirka maamulaha. Kadibna wuu soo dhacay, wuxuuna farta ka jabiyey wiilkii biyaanadaba ma garaaceen sida farta looga jabiyey. jinsiya waxaa laga buriyey iskuulka, laakiin maamulaha ayaa fursad kale usoo bandhigay oo ah inuu qoray warqad ah in lagu daro ciidanka Navy-ga Mareykanka. Kadib markuu tagay Mareykanka kuna biiray ciidanka, waxaa dhacay dagaalo. Wuxuuna ogaaday inuu farxad ku filnayn ka helin askarnimada. Wuxuu ogaaday in shaqada ciidanka ay tahay in wax la burburiyo, in naf la gooyo. Wuxuuna isaga tagay shaqada ciidanka, wuxuuna kusoo waray dunida si uu u ogaado macnaha nolosha. Maalin maalmaha ka mid ah, maamulihiisa jiraanta ayaa warqad usoo dhigay boostada, wuxuuna ka codsaday inuu yimaado iskuulka uuna macalin ka noqdo. Intaas kadib wuu imaaday, sidaas ayuuna macalin ku noqday. Ardaydii markii ay ogaadeen nolosha macalinkooda, hal mar ayay dhaqankooda bedeleen. jinsiya wuxuu sii galayaa fasalka, waxaana loo soo dhaweynayaa si diiran. jinsiya wuu dhoola cadeynayaa, ardaydana fadhiista ayuu ku leeyahay. Kadib wuxuu weydiinayaa ardayda cidda
gacanta miiska u saartay tufaaxa. Kadib maclimad qurux badan ayay rid soo istaagaysa ayadaan dhehaysa aniga kuu hibeeyey. Sanadkii xigay ardayda si fiican ayay fasalka u imaanayaan waxna u baranayaan. Jinsiya wuxuu u sheegayaa in ay dadaalaan natiijo fiican la yimaadaan imtixaanka sanadka. Intaas kadib maalintii koowaad imtixaanka hogaamiye koox maafi ayaa imaanaya iskuulka si ay foodo u abuuraan. Ardaydii ayay waxay ku xirayaan shabaq si ay imtixaanka u dhaafo. Hal mar ayaa la maqlayaa codka jinsiya oo dhahaya sigaar looma ogolo iskuulka, wuxuuna bilaabayaa in uu la dagaalo tuugada. Ardaydii waxay fiirsanayaan dagaalka waxayna u sacbinayaan jinsiya, wuxuuna weydiinayaa in xaalkoodu fiican yahay. Jinsiya wuxuu ku dhahayaa ordagal imtixaanka kuwa anaa cashir dhigaya haga daahin imtixaanka. Ayagana imtixaankooda ayay galayaan. Markaan waxaa soo galaya dagaalka hogaamiyaha tuugada, labada ayaa dan isqabanaya waana la garaacaya hogaamiyaha maafiyada. Jinsiya farta ayuu fiiqayaa wuxuuna weydiinayaa sababta ay iskuulka soo weerareen. tuugiina farta midig ayuu fiiqayaa isagoo leh naftaada ka taxadar. Laakiin jinsiya wuxuu ogaanayaa ninka inuu yahay cunugii oo had koor gacanta ka jabiyey ee biyaanada tumi jiray xilliga iskuulka, wuxuuna u yimid in uu arguto. Mar kale ayay isqabanayaan, haddana waxaa la garaacayaa ninkii ugu dambeeyey midi ayuuna la soo baxayaa. Laakiin jinsiya ugu guuleysanaya in uu qaato tooreyda. Intaas kadib qof kasta markuus dhoo jinsiya uu gelinayaa tooreyda, isaga ayaa lugta iskaga dhufanayo. Wuxuu ku dhahayaa deenta sanadaha badan ayagu lehed gacanta midig ayaan kuu guday. Inta uusan bixin tuug ayuu ku dhahayaa aniga sanado badan ayaan ku raadinaya si aan kula kulmo, waan ogahay inaa xisaab u lehed waana soo xiray, haddana waan kaa raalgelinayaa ayuu ku dhahayaa. Tuugii wuxuu qolka soo dhahayaa xaqiiqadii waan jeclaa ciyaaridda biyaanada. Filimkeena halkaas ayuu maanta ku dhammaanayaa, waana ku mahadsantihiin daawashadiina.